dhulka iyo dadka dowlad deegaanka Soomaali Itoobiya loo yaqaan ee Itoobiya xooga ku haysato ayaa maalin walba la kulma bahdil hoggaan xumo iyo jahawareer siyaasadeed waxaana hoggaanka maamulka Soomaalida ee Jigjiga mar walba qabta shaqsi aan lahayn tayo hoggaamineed iyo dun Soomaaliyeed muuqaalkan waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo Soomaaliya si bareer ah ugu gafaya kuna tilmaamay inay gunnimo taal oo ay dalal shisheeye farigeliyaan maantana Cagjar wuxuu ku jiraa xabsi waxaana uu u xiran yahay dowladii shisheeye ee uu sidan u difaacayay ee Itoobiya sida la socotaan kooxdan argagixisada al-shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka Soomaaliya marka waxay u haysataa meel walba ay gasho sida Soomaaliya oo kale inay dadka gumin karto inay kalifi karto in dalal shisheeye soo farageliyaan sida la socotaan daawadayaal dhawaan ayay militariga Somaliland sheegeen inay hayaan askar ka tirsan ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka dagaalamayay magaalada Laascaanood kuwaas oo dhinaca Buuhoodle ka soo galay Laascaanood baaritaan aan sameynay ayaan ku ogaanay inuu xiran yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar sidoo kale qoraal ka soo baxay xubno ka agdhow madaxweyne Mustafa Cagjar oo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa lagu yiri war rasmi ah ciidamada federaalka dalka Itoobiya ayaa la wareegay amniga madaxtooyada magaalada Jigjiga ciidamadan federaalka ee ka socda dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa baaris ku wada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar madaxweyne Cagjar ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug yeeshay qalalaasaha iyo xiisadda dagaal ee ka socota magaalada Laascaanood halkaas oo lagu arkay ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka Soomaalida ee liyu boolis dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa keentay ciidamo ka socda federaalka xuduudaha Somaliland iyo Itoobiya kadib markii ay xukuumadda Somaliland u gudbisay dowladda Itoobiya cadaymo iyo ku lug lahaanshaha ciidanka liyu boolis ee dagaalka Laascaanood ka socda warkan oo ka soo baxay Jigjiga iyo xariga Cagjar ayaa labaduba run ka dhigaya hadalkii Somaliland ee ahaa inay ciidanka liyu boolis ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida muuqata Somaliland waxay ku guuleysatay inay soo afjarto hoggaankii Cagjar oo qayb ka ahaa dagaalka Laascaanood waxaana maanta mugdi ku jira mustaqbalka Mustafa Cagjar oo u muuqda inuu qaaday wadadii Cabdi Ilay oo ilaa iyo hadda u xiran dowladda dhexe ee Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa ahaa shaqsi si weyn ula dhacsanaa siyaasadda Abiy Ahmed kaasi oo dekanooyin badan oo siyaasadeed u galay difaaca Abiy Ahmed sidoo kalena ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u muuqda nin si weyn ula socda dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood kaasi oo laga yaabo inuu Somaliland ku garab siiyo sida ay gobolka Sool uga saari lahayd kooxaha hubaysan ee halkaas ku sugan oo Itoobiya saameyn ku yeelan doona intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku eeganay wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanayay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya kuwaas oo sheegayay inuu xiran yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar sidoo aragtaa daawade fikirkaaga nala wadaag